barnaamijyadii waxqabadka hay-adaha ee carwada ay ku soo bandhigeen iyo waxyaabaha ay halkan ku soo bandhigeen. Iminka waxaan dhex taaganahay waxa weeye waa hay-adda dalka laga leeyahay dad ugu weyn ee hay-adaha dalka laga leeyahay waa hay-adda Hafayoko oo dabcan in badan caan ka ahayd dalkeena. Hay-addan waxay ka shaqaysaa dhammaan 6 gobol. Soomaaliland oo kaliya waliba kama shaqaysan, geeska oo dhan bay ka shaqaysaa, waxay ka shaqaysaa ilaa iyo dalka Ethiopia. Mashaariic fara badan bay fulisaayo. Dabcan waxaynu ku naqaanay Hafayoko kooxda sarkaska oo kale iyo cunto karinta. Iminka waxaan dhex taaganahay waa carwadii bandhigii hay-addaas Hafayoko waxaanay barbar taagan halwadeen ka mid ah hay-adda oo dabcan iyadu ku takhasustay cuntooyinka kala duwan samayntooda. Iminkana diyaar u ah inay sharaxdo. Walaal horta magaca waxaa yidhahdaa Kawsar Maxamuud Xasan. Kawsaray, halkan waxaan arkayaa cunto fara badan oo dabcan markaan soo galay aniga laftaydu calooshii baaba candhuufta liqay ilaa maanta. bal markaa cuntooyinkan adigoo halkan iga bilaabaya bal waxa laga sameeyay iyo cidda samaysayba igoor. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Horta hay'adda Hafayoko waxa ku jira qayb la yiraahdo Family Life Education Center ama horumarinta waxbarashada qoyska oo loogu talagalay marka horeba horta qoysaska dayarta in maxaan ku dhahay xirfadahan ay kaga geli kamid yihiin cuntooyin kala fara badan oo aan imika halkan oolinay kamid yihiin lagu tababaro. Anu waxaan ahay khaasatan mashruuca Family Life ka ama horumarinta qoyska project manager kooda ama maamulahooda waxa jira macallimiin ku takhasustay oo cuntooyinkan iyagu ka shaqeeya, laakiin anu maamulkoodii baan ahay. Haddii aan ku sharaxo keegagan horta waxa loogu talagalay sideeda waxaad ogtahay dalkeena waxa ku badan cudurro badan imika oo ay kamid yihiin macaanka, dhiigkarka. Cuntooyinkani waa cuntooyinka lagula tacaalo xanuunadaas qaar ka mid ah ku jira keegaga aroosyada ka mid ah. haddaan kaa dhex galo keeg macaanku qofka macaanka qaba dabcan macaan baa xuma waana keeg baad leedahay uu la tacaala macaanka walaalo waxa maxaan ku dhahdayay laga sameeyay cuntooyinka ka baxa dalkeena ee ay ka mid ka yihiin galeyda, heeda, garowga, waxyaabaha soo miidhan oo ku jiraan kaaro, lin macaan kaas laga sameeyay walaalo. walaal haddaan kaasi dhex galo iminka aad buu cad yahay kaas waxaad leedahay hadduu cuno qof macaan qaba waxba ay walaalo kan oo kale imka creams baa ku jira kan ma cuni karo qof macaan qaba, laakiin kan oo kale heedi buu ka samaysan yahay, kan oo kale galey buu ka samaysan yahay, kan garow buu ka samaysan yahay. kaas oo kale maxaan ku dhahay qofka macaanka loo cuni karayo waliba macaankiisana way fara badan buu ka qaadan karaa. kanna muxuu ka samaysan yahay? wuxuu ka samaysan yahay daqiiqda caadiga oo qofrada ay lin macaan, muus, ananas ay ka mid yihiin lagu daray. creamskan walaalo dusha lagaga sameeyay. haddaynu halkan u soo gudubno iyada lafteedu kuwani waa kuwa xidhxidh ah sidaan arkayo. waxa weeyaan maxaan ku dhahdayay buskudyo iyaguna ka samaysan galey waad arkaysaa waa orange weeyana lin macaan waxa weeyaan kana heed. marka dadka qaba macaanka iyo dadka aan macaanka qabinba labadaba isticmaali karaan. marka horeba isaga sokor lagu sameeyo waayo cream yar oo ama jaama ama creama ama chocolate ayaa dhexda laga mariya. waa gartay kuwan kalena waa la mid un kalena maxaan ku dhahay kuwani waxa weeye waxa cuni kara caruurta oo kale waayo waxa weeyaan maxaan ku dhahdayay shokoole. aad baad u mahadsan tahay walaashay. haddaan xaggan kale u jeedsano iyaguna waxa isaguna i garab taagan waa Jimcaale. Jimcaale waxaan arkayaa kulley halkan miiskan yar oo kale waxaan ku arkayaa alaab yar oo qurux badan oo aad moodid alaabtii ciyaalku ku ciyaari jireen. waa maxay alaabtani? maxamed alaabtan haddaan kaaga warramo walaal waxa weeyaan waa qolkii hurdada iyo miiska cuntada waxaana lagu sameeyey xarunta tababarka Hafayoko ee Hargeysa. waxa runtii samaysay ardayda ku jira training ayaa samaysay waa sample ka mid ah qolka hurdada. taa macnaheedu waxa weeyaan haddaad iminka doonayso aad aqal gelayso aad aroos iyo tahay waa dalban kartaa waxaad dalban kartaa xarunta tababarka Hafayoko. waliba dhisaankan waxa dhisaan kala duwan lagu siin karaa waxa lagu samayn karaa muddo hal week ah ayaa lagu sameeyay gebigeedaba. maxay markaa igu kacaysaa markaan intan oo kale eegeen dabcan waan ogahay way kala duwanaan kartaa qiimuhu laakiin ma ka jaban yihiin dawooyin alaabtan dibadda? way ka jaban yihiin runtii waayo waxyaabaha laga sameeyey waxa weeyaan kulley materialka badankooda waxa ka yimaadeen dibadda, laakiin alaabtan had iyo jeer way ka jabnaanaysaa alaabta laga keenay dibadda aad bay runtii uga jaban tahay waana alaab runtii tayadeedu aad u fiican tahay waayo runtii waxaanu haysanaa qalab casriya oo ah xagga carpentry-ga oo aan weli Soomaaliland runtii centerska kale aan oolin ayaan runtii
haysanaa way hay'ad runtii UNIDA lagu deeqay aan haysanaa iyo UNHCR marka runtii waa qalab si fiican loo fiirsaday baan qabaa halkan iyada lafteeda waxaan ku arkayaa gargarayaal baan ku arkayaa gargarayaashana maxay yihiin ma idinkaa sameeyey gargarayaasha waxaa samaysay runtii Hafayoko waxaa loogu talagalay waad ogtahay dhibaato badan baa ayaa ka jirta xagga dhuxulshii waatan la shidayo waatan cimilada adduunka wax baan iska bedelayaan marka gargarayaal magaciisa marka hore hadda ku soo xidha marxiya la yiraahdaa maxaa loogu bixiyay marxiya waxa loogu bixiyay gargarayaashii hore magacoodu wuxuu ahaa mariye marka oo bulshada barin jireen dad badan bay sii deyn jireen waxbay sameyn jireen kani marka waa marxiye dhuxushii ku marxinaya marka dhuxul yar ayaad ku karsan kartaa cunto fara badan marka waxa weeye tamartii uu kaydinaya lacagtii uu ku kaydinaya deegaankana uu badbaadinaya marka marxiyana isagana waad iibisaan isaga qiimihiisu waxa weeyaan aad buu runtii u jabaya waa $8 weeye $8 laanta markaad ka dhigtana laanta markaan ka dhigno kulli wuxuu noqonayaa $50 way halkan soo jeedka iyada lafteeda waxaan arkayaa laydh fara badan oo baxaya jimcaalow maxay ahayd shaxdanna maxay ahayd shaxdan runtii waxay ahayd shaxay sameeyeen ardayda ku jirta xarunta tababarka ee Hafayoko qaybta laydhka ama solarta loo yaqaano shaxdan waxay ku shaqaynaysaa solar iminka panelkii dibaddu yaala marka oo gurbiyo kala duwan waxa marka la soo bandhigayaa in la kaydiyo tamarta cadceedda laga faa'iideysto sida ku qoran boardka save energy save money save the planet marka waxay ku saabsan tahay in dadku ka faa'iideystaan tamarta cadceedda oo ay dhuxushii deegaanka dhibaatada badan ku haysay runtii ay joojiyaan ay ka hadlaysaa marka waxa runtii guud ahaan laga hadlayaa ka faa'iideysiga tamarta cadceedda waan gartay aad baad u mahadsantahay iminkana waxaa isaguna garab taagan waxaa weeye waa Kamaal Xasan oo dabcan daawadayaal fara badan ay ku yaqaanaan Sarkas Somaliland ama boostaro fara badan oo magaalada ku yaala waa ninka marsan weeye calanka Somaliland horta goormaad calankaas marsatay sawirkaana si laga qaaday maad ugu tala gashay in meel kasta lagu soo jiito runtii waan ugu tala galay oo maalintaasi waxay ahayd maalin weyn oo Somaliland qadiyadeeda loo banaanbaxayay iyadoo ay Somaliland ku dalbanaysay itraaf beesha caalamka ka dalbanaysay runtii maalinta wadaniyad bay qaaday habeenkii oo dhan ma seexan arintaas aniga fikirayay subaxnimadii baan markaa go'aansaday inaan arintaa masuuliyad marsaday sidii baan sawirkii runtii ku baxo sawir caalami ah oo ku noqday adduunyada dhan wada gaar marka maalintii waxay ahayd miyaa Somaliland banaanbax weyn loo sameeyay itraaf dawladii hore ku dhawaaqday udub markay haystay waan gartay yaa talow kugula jiray sawirkaasi waxay igula jiray koox ka tirsan Sarkas Somaliland